لا tukada oo saxo sooma rabadaanka saka la isku leeyahay xajkana socota dheeraada sadninkii hela waa inuu sadaqad dhiibaaye waa inaad sinaan alxamdulillaah rabbil aalamiin وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وخليلنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه والليال ولي waxay noo socda barnaamijkii salaatuna xayaatuna salaadeenu waa nolol waynu ku iftiiminaynay salaadan aynu tukanayno qiimaha iyo cadamada iyo weyninka islaamka ku leedahay iyo salaadaha waxa loo odhanayo iyo waxa la samaynayo inaynu faahano in sha allahu tacaala si salaadeenu salaad dhaxalgala oo saameyn inoogu yeelata ay noqoto xalqadii hore waxaynu ka soo hadalnay qiimaha salaada oo dhowr xalqadood aynu ku soo faahfaahinay xalqada laga bilaabana in sha allahu tacaala waxaynu hoos ugu dhaadhacaynaa salaada iyo waxaynu odhanayna macnaheeda iyo xarakaadka iyo ficilada la sameynaya inaynu dul istaagno biidni illaahi caza wajal walaalayaal salaada aynu tukanayno waxay ka kooban tahay qiraa'o ama faatixa ha noqoto ama qur-aan kaloo la akhrinayo istaag ilaahay la isu taagayo rukuuc la rukuucayo sujuud la sujuudayo afartaasaa udub dhexaad u ah fadhiyadu waxa weeye iyagu kuwaasay taabicu yihiin qur'aan rukuuc sujuud qiyaam afartaa shayba salaada waa lagu magacaabay oo salaada waxaa lagu magacaabay qur'aan baa lagu magacaabay wa qur'aan alfajr ina qur'aana alfajri kana mashhuuda oo looga jeedo salaat alfajri looga jeedo salaadii ayaa waxaa lagu magacaabay qur'aan baa lagu magacaabay waayo qur'aanku salaadu waxyaabahay ka kooban tahay kuwa ugu muhiimsan wey waxaa kaloo salaadii lagu magacaabay rukuuc warkacuu maca araakiciin oo looga jeedo tukada looga jeedo rukuucduna salaada qeybaheeda kuwa ugu waaweyn wey الsujuud salaadii sujuud baa lagu magacaabay kitaabka iyo sunada labadaba fasabix bxamdi rabika wakun min الsaajidiin ay min almusaliin kuwa tukanaya noqo markuu nabigu leeyahy alayhi الsalaaةu wasalaam faacinii calىa nafsika bikahrati الsujuud sujuuda badi waxaa looga jeedaa salaada hala badiyo waxaa kaloo lamida qiyaam oo arkaanta muhimkaee salaada ka mida ilahay la hor istaago waqumuu lilahi qaanitiin qiyaamu اleyl wa salaaة اleyl wa salaaة اleyl qum اleyla ilaa qaliila ay sali tukawi salaadu haddaynu doonayna inay noqoto salaad saameyn inugu yeelata salaad waxay naga bedesha salaad sidii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam aynu ku indho qabowsano salaad aynu ku raaxaysano sidii nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ugu raaxaysanayay waxyaabaha aynu u baahannahay waxaa ka mida 6 goobood qofku inuu isdhigo 6daa goobood waa 6 goobood oo salaada markaad gasho ilaa intaad ka baxayso la doonayo inaad ku dhex noolaato oo aada isku soo xaadiriso oo aada dareento 6daa goobood goobta koowaad waa inaad dareento ikhlaas inaad alle subxaanahu wa tacaala u cibaadeysanayso inaad ilaahay hor taagan tahay oo ilaahay aada u barax tirto dad in la istuso dad in la ismaqashiiyo bini aadam aanu qalbigaaga ku soo dhicin wma umiruu ila liyacbudu اllaha mukhlisiina lahu اdiina xunafaa inaad kaad u tukanaysaa uu yahay allah kaad u sujuudaysaa inuu yahay allah xaaladda noocaasa inaad ku sugnaato waa kow
xaaladda labaad ama dareenka labaad waa mashhadu الnusxi waالصidq in salaada aada daacad u tahay run aad ka sheegayso oo wax kaloo ku mashquulinaya aanu jirin in salaada aada daacad u tahay salaada aada run ka sheegayso qalbigaaga uu soo jeedo qalbigaaga waxyaabo kale aanay ku jirin dadka qaar salaaddii bay gelayaan laakiin waxay ku jiraan caalam kale ayay ku mashquulsan yihin goobta saddexaad ee la doonayo salaada markaad tukanayso inaad dareento waa aliqtidaa walmutaabaca salaadan waxaa tukaday nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam oo saxaabadii ay ku tilmaameen inaan cidi ka salaad wanaagsanayn cidina aanay uga cilmi badnayn nabiga alayhi الsalaatu wasalaam oo la yihi ha lagu daydo oo ina yihi saluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada sidaad ii aragteen ana u tukanaya nabigu alayhi الsalaatu wasalaam qaabkuu u tukanayey inaad u tukanayso inaad nebi maxamed ku dayanayso alayhi الsalaatu wasalaam salaadiisi inaad isku dayeyso dareenka noocaasa inaad la noolaato iyaduna waa mid salaadaada qiimo u yeeleysa arrinka afraad ee la doonaya inaynu dareensanaano waa mashhad alixsaan almuraaqaba inaad dareensanaato xarakaadkan iyo hadalladan iyo salaadan aad tukanayso ficilkan hadda aad samaynayso alla subxaanahu wa tacaala inuu taalacanayo an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa laba marxaladood in midi waxa uu yahay inaad caabuddo alle subxaanahu wa tacaala oo aada u tukato adigoo og ilaahay inuu ku taalacanayo salaadaadana inuu arkayo codkaaga inuu dhegaysanayo ficilkaaga eegayo inaad qaabkaa u tukato kaa waxaa ka sii xeel dheer inaad salaaddii tukato sidii adigu inaad ilaahay arkayso oo alle subxaanahu wa tacaala min caalami اlgayb aanu ahayna caalamu الshahaada sidii ilaahay inaad arkayso kale inaad u cibaadaysato waxaynu adduunyada ku naqaanaa walilaahi اlmathalu laclى qofku cidda uu u shaqaynayo markay la joogto ee uu arkayo ciddii uu shaqaynayay iyo markay ka maqan tahay isku si uma shaqeeyo marka inaad isdareensiiso alle subxaanahu wa tacaala adigu inaad arkayso oo aada daalacanayso si cibaadadaad u sii wanaajiso taasi way adag tahay dad badan waa ku adag tahay laakiin dadka waxaa u fudud xaaladda kale ah ilaahay inuu kula socdo isagu ku daalacanayo ku arkayo dareenka noocaasa inaad yeelato iyaduna aada iyo aad bay muhiim u tahay qodobka shanaad waa alminna wاlfadl inaad la noolaato dareen ah cidda booskan qiimaha badan ku soo joojisay salaadan aadka u weyn ku soo waafajisay ku awood kuu siisay aqoonna kuu siisay inaad ilaahay u tukato ciddii jaaniskaa ku siisay galladda iyo fadliga iyo minnada uu kugu leeyahay inaad dareensanaato muuminiintu markay jannada galaan ee ilaahay uu nicmeeyo waxay odhanayaan wamaa kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah haddaanuu ilaahayna hanuunin lahayn maanaan hanuuneyn ayay odhanayaan dareenka noocaasina aad buu muhiim u yahay annahu laa xawla laka walaa quwa markaad maqasho xaya cala asalaa salaada u kaalay waxaa laynoo jideeyey inaynu ugu jawaabno laa xawla walaa quwata ila biاllah ilaahayow xeelad iyo xoog aan kuugu cibaadaysanayo oo aan kuugu tukanayo melihi adoo ii kaalmeeya mooyaane faatixada dhexdeeda salaada markaynu tukanayno suuraة اlfaatixa salaada dhexdeeda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnahaasaa lagu tilmaamay ilaahayow adaanu ku caabudaynaa oo kuu tukanaynaa taana adaanu kuu kaalmaysanaynaa
marka haddii ilaahay kuugu kaalmeeyo kuu fududeeyey dareenkaa inaad yeelato galladda iyo fadligu inuu alle subxaanahu watacaala leeyahay. qodobka lixaad ee la doonaya in la dareemo waa mashhad التaqصيir, qofku inuu dareemo gaabis. subxaanak maa cabadnaaka xaqa cibaadatik, maa salaynaa laka xaqa الصalاة, salaaddii aad naga doonaysay ilaahay oo lamaanan iman. gaabiska ilaahay ou naga dhaaf, inaad dareensanaato si kastoo aad u dadaasho gaabis inuu kugu jiro. dareenka noocaasana waata uu inoo tilmaamaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu inoo jideeyey salaadda markaynu sidaa uga baxno oo cibaado aada u qiimo badana ee qofku yidhaahda assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum waraxmat ullah, dikriga koowaade laga bilaabaya waxa uu yahay astagfir اllah, astagfir اllah, astagfir اllah. ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya oo dunuub oo dhan baan dembi dhaaf ka weydiisanaya. salaadii aan hadda tukanaya gaabiskii aan ku sameeyey baan dembi dhaaf ka weydiisanaya. waxaa iska dabiiciya qofku markuu wanaag sameeyo uu ka dhammaado inuu yidhaahdo maa sha allah alxamdu lilah, laakiin salaadoo camal weyna lama odran markaad ka baxdaan alxamdu lilah, alxamdu lilah, alxamdu lilah. ee markiiba waxaa la ina dareensiiyey gaabis inuu inagu sugan yahay. waxaynu ku bilaabaynaa astagfir اllah, astagfir اllah, astagfir اllah. idan salaada gudaheeda intaynu ku sugannahay waa inaynu macnaha dareensanaanaa. dadaal kastoo aynu samayno, isbihinbihin kastoo aynu samayno, khushuuc kastoo aynu la nimaadno, adkaar kastoo aynu la nimaadno, duco kastoo aynu ku dadaalno, inaynu dareensanaano gaabis inuu jiro. taasina waa mid yaduna aad iyo aad waxa weeye muhima. hada wallahu aclam, wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbih wslm.